maskaxdeena waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay khaanado badan daaqado badan markaa sidii camal gurigaaga markaad joogto daaqadaha furto daaqadaha hadii kulley markaa furto hawa kaaga soo galaysa ama banaankii baad eegaysaa cirkaad iska daawanaysaa waxbaad furtay meel baad ku jirtay marka daaqadii furtay wax kalaad aragtay indhahaagii wax kale u qabtay marka maskaxdeeduna waxaa la sheegayaa inuu khaanado badan leeyahay haddaba maskaxdeenu siyaabo badan uu khaanadahaasi isku furo wuu jiraa waxaa kamid a markuu qofku wax dareemo iyo markuu wax ku baraarugo marka hablo badan iyo xitaa wiilalna way jiraan maalmaha waxaa igu yar soo noqnoqday in uu jiro dad aada u walwalaya walwalkuma fiicno haddaad walwashid walwalka iyo calaacalka oo labada shay ee kaa qarinaya waxaad qabsan karaysid oo labada shay ee ku ilowsiinaya inta yaraad garanaysid inuu badnaanba inta yaraad garanaysid wuu ku ilowsiinaya inta badanaad garanaysidna maba soo xasuusanaysid marka calaacalka iyo cabsida badan waxaad ku seegaysaa waxaad qabsan karto waxaad ku iloobaysaa kartidaada wanaagaaga qofka fiican ee tahay wax badan buu ku ilowsiinaya arrinta u horeysaan kuu sheegayaa waxa weeyaan waqtigii tagay waxa ka muhiimsan waqtiga soo socda aan kugu celiyo waqtigii tagay waxa ka muhiimsan waqtiga soo socda salaada jimcaha waa tagtaan u malaynayaa mar walbuu imaamku inoo dhameeyo khudbadda waa kayna idhaahda toobadkeena qofkii toobadkeena waa isagoo bilaa dembiya hadduu ilaahay naga aqbalo insha allah si daacadaad aad ula timaadid markaa toobadda alla toobad keenayo wixii tagay oo dhan hadday daacad kaa tahay si fiican u toobad keentay wixii tagay oo dhan waa lagu masaxaya ilaahay wuu kaaga masaxaya donc waxa soo socda waa page cusub baa kuu furmay markaa waqtigii tagay waxa ka muhiimsan waqtiga soo socda wixii tagay ee ku seegay wixii tagay garan weyday wixii tagay ee kaa xumaaday wixii tagay ee si kale u qabsan kari lahayd laakiin aanad ogeyn waxaasoo dhan waxa ka muhiimsan maanta ka muhiimsan waxa ka muhiimsan waxaasoo dhan waqtiga inta kuu hadhay maantaad joogtaa maanta ka bilow page cusub bilow waxaad dhibsanayso oo dhan wax wanaagsan ku bedel waxa kaa maqan baro waxaanad ku saxsanayn sax waxaad ku fiican tahayna sii badi arrinta labaadeen rabo in aan kugu baraarujiyo oo maskaxdaada khaanadaha badan ee ku jira uu isfuro si aad iftiinka u arki karto si aad uga fikiri karto si aad wax u dareemi karto si aad wax u qabsan karto arrinta labaadna waxa weeyaan wixii aad hilmaamtay wixii aanad ogeyn wixii aanad garanayn sidaad loo sameeyo bilow maaha ila mabaad ogeynbe wax badan baa ku seegay wax badan baa kaa tegay wax badan baanad garanayn wax badan baanad ku baraarugsanayn marka wax walba ood ku dhex jirtay oonad markii ku baraarugsanayn oonad markii fahansanayn maaha bilow maaha wax tirsan waxa tirsan waxa weeyaan oo kow lagu oran karaa waa maalintaad arrin ku baraarugto ayaad leedahay hey dee arrintan san umaan ogeyne laakiin maanta waan ogahay maanta ii koowa waynaan maanta ku cashar qaato oo haddeed wixii ansaxo oo haddeed wixii aanan garanayn aan wax ku barto marka wixii ku seegay maaha bilow laakiin wixii maanta aad ogaato ayaa ku koowa markaad kowaan ku leeyahay kama dhigno khaladaadaad ku jirtay oona dareensanayn baa muxuuhaa markaad dareentay kow kuu ah no because maad ogeyn markaas laakiin maantood og tahay haddeed wixii ka dambeeya haddaad khaladaadkaa kusii jirto dee of course waa kuu kow oo waa kuu labo oo waa kuu saddex marka wixii aanad ku baraarugsanayn oona dareensanayn maaha kow laakiin maalinta aad wax fahanto inay waxsi yihiin maalinta aad fahanto inaanad waxba aanad wax kaa maqan yihiin aqoonta waa la bartaa ceeb maaha aanad garanayn arrintaa iyo arrintaa maalinta aad fahanto inaad wax ku khaldantay maalinta aad fahanto in lagaa gardaran yahay oo lagaa khaldan yahay waa inaad maalintaa aad wax ku baraarugto oo dareento uu qaraar kaa iman karo qaraarkaasoo aad insha allah aad isleedahay wax fiican ku samee cidna ha ku dulmin wax wanaagsan ku qabso naftaada ugu roonow oo wax ugu qabo haddaan kuu soo koobo wixii aad hilmaamtay wixii ku seegay wixii aanad fahansanayn maaha bilow waxa bilow ah waa marka aad wax baraarugto waa markaad baraarugto
waxa bilow ah waxyaalaha aad ku baraarugto weeyaan. waa marka aad baraarugto eed wixii dareento inay meesha amba wax ka maqan yihiin, meesha wax ka sii yihiin, adiga wax kaa sii yihiin oo tahay inaad saxdo, adiga wax kaa maqan yihiin oo tahay inaad wax barato, adigoo ay tahay inaad dad qof ku xun tahay xumaantii ka joojiso, haddii lagugu xun yahay aad tiraahdo stop. aad wixii dareenteed baraarugto ayaa bilow ah. maalintaasay tahay markaa inaad qaadato qaraar wanaagsan oo adigana dan kuu ah, dadkana aanad waxba ku yeelin, ilaahayna aad ugu dhawaanayso. hawalwelin, niyadda khayr u sheeg, wax badan oo qurux badan oo naftaada u qaban karto oo ku sugaya biidnillah wuu jiraa. niyadda khayr u sheeg, walwalka iska ilaali, cabsidaa iska ilaali, calaacalka ayadaa iska da. calaacalku wax fiican maaha. qofka markuu mar walba calaacalo valuegaaga hoos u dhacaya, adigiis ma aaminaysid, qofkana u waramisidna kumaba aaminaybeed. qofka sama calaacalaya maalin walba muxuu qabsan karayaaba dee waxbaba dee laguma arkayaba hadhow. marka calaacalka badan ma fiicno. maalinaba qofkuu yar calaacali karaa, laakiin mar kasta haddaa ku celcelisid waxba lagu arki maayo. marka calaacalka badan, cabsida badan, walwalka badan, waxaasoo dhan khaanad iskaga xire. okay, dikriga ayaa aamusiya waxaasoo dhan. afka la qabanayaa, meel baa lagaga xireynaya. markaad dikriga badso, midda kalena waxaad soo xasuusataa labadan shay nimanka kuu sheegayay yara fahan, si uu maskaxdaada khaanadaha badan ee ku jira mid kamida uu isku furo, wax u dareemi karto, wax aad u arki karto, ood u dhaqdhaqaaqi karto insha allah. I think waan isfahanay. Good. Bye.